tan iyo markii uu bishii hore qarxay dagaalka ka socda dalka Ukraine waxa si dhow dunidu isha ugu wada haysay tallaabooyinka ay geestooda qaadi doonaan wadamada Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi kuwaasi oo ah laba quwadood oo soo raaca dalka Ruushka isla markaana lid ku ah danaha reer galbeedka iyo danahooda adduunka. Shiinaha ayaa dhawaan 9 diyaaradood dulmariyay hawada Taiwan taas oo keentay in qayladhaan ka timid dalalka reer galbeedka ee taageera jasiiradda Taiwan oo ah dhul Shiinuhu uu sheegto iyadoo laga cabsi qabo in Beijing sida Moscow iyaduna ay ku duusho jasiiradda Taiwan. waxaana dhawaan halkaasi gaadhay wafdi isugu jira saraakiil sarsare iyo diblomaasiyiin kuwaasi oo ujeedkoodu ahayd sidii ay taageero ugu muujin lahaayeen Taiwan. geesta kale Maraykanka ayaa si weyn walaac uga muujiyey gantaalaha ay ganayso Kuuriyada Waqooyi iyo weliba kuwo kale oo la sheegayo inay dhawaan ooda ka soo qaadayso isla markaana ay wado qabanqaabadii ugu dambaysay. taliska Maraykanka ee badda Indo-Pacific ayaa sheegay in gantaalaha ay dhawaanahanba tijaabinaysay Kuuriyada Waqooyi ay halis ku yihiin danaha Maraykanka ee biyaha Jabbaan iyo weliba amniga xulafadiisa gobolka. sidoo kale Maraykanka ayaa sheegay in arrintan ay tahay mid sidii hore ka duwan maadaama Kuuriyada Waqooyi ay sanadkan 2022 ay laba jibaartay tijaabooyinka ay ku samaynayso gantaalaha riddada kala duwan leh ee halista ah kuwaasi oo sida Washington ay aaminsan tahay keeni kara cawaaqib xumo isla markaana noqon kara daandaansi dagaal oo Kuuriyada Waqooyi ay ku xasaradeynayso dalalka la jaarka ah sida Jabbaan iyo Koonfurta Kuuriya. waxaana dalka Maraykanku uu shaki weyn ka muujinayaa in uu jiro is-afgarad dhex maray dalalka Shiinaha, Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi kaas oo daaran in Maraykanka iyo bahwadaagtiisa gobolladaasi lagu bilaabo daandaansi dagaal. waxaana aqalka cadi marar badan ka digay in dawladahaasi ay ka fiirsadaan dhibaatada ka dhalan karta haddii la isku dayo in lagu kaco falal wax u dhimi kara nabadgelyada iyo xasiloonida dhulkaasi. saddexda waddan ee kale ah Shiinaha, Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa ah dalal haysta hubka waxgumaada ee nukliyarka. waxaana tan iyo intii uu bilaabmay dagaalka Ukraine sii xoogaystay walaaca laga qabo in hubka la isku adeegsado isla markaana la isku weeraro. walaaca ayaa sii kordhay markii uu madaxweynaha Ruushku uu dhawaan heegan sare geliyay unuggii dalkiisa u qaabilsanaa hubka nukliyarka iyadoo sidoo kalena hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi laga sheegay warar ku saabsan in uu si weyn u howlgeliyey qaybihiisa nukliyarka oo awalba si weyn u diyaarsanaa. inkastoo aanu Shiinuhu geestiisa weli ka hadlin arrimahan hadda la isugu hanjabayo ee nukliyarka haddana waxaa dalalka reer galbeedku tuhunsan yihiin in aanu meelna kaga hadhi doonin labadiisa saaxiib ee hadda isha lagu wada hayo. tan ayaa noqonaysa mid dunida oo dhan ku abuuri karta welwel maadaama hubka nukliyarku yahay mid saamayntiisa tabani aad u sarrayso. hubka nukliyarka oo xilligii ugu dambaysay la isu adeegsaday dagaalweynihii labaad ee dunida ayaa ilaa hadda riiq ku reebay dhulkii uu ku dhacay ee Jabbaan. waxaana si weyn looga digay in hubkaasi loo adeegsado wax hanjabaada ama dhoolatus ah. Maraykanka ayaa marar badan Kuuriyada Waqooyi ku eedeeyey in ay tahay dal qayrulmasuula oo qaadi karta tallaabooyin aan la mahadin, balse hogaamiyaha mayalka adag ee midigta fog ayaa ku doodaya in dalkiisu xaq u leeyahay samaysashada nukliyarka. ilaa hadda ma muuqato saansaan lagaga wada hadlayo in la xidho soo hadalqaadka adeegsiga hubkan, waana taasi sababta ay reer galbeedku maalmahan sida weyn uga qaylinayeen arrimaha ku saabsan nukliyarka.